abaalmarino caalami ah ayaa la guddoonsiiyey shakhsiyaad iyo hay'ado Soomaaliyeed kuwaasi oo loo aqoonsaday tusaalaha dhanka horumarka bulshada Soomaaliyeed ee sanadan 2016 tartankan oo ahaa mid ay codkooda dhiibanayeen bulshada Soomaaliyeed oo soconayay muddooyinkii u dambeeyay ayaa la soo gabagabeeyay habeennimadii xalayto waxaana magaalada London lagu qabtay xaflad ballaaran oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay xubnihii guuleystay waxaana munaasabadan abaalmarinaha lagu guddoonsiinayay xubnahan ku guuleystay tartankan qabanqaabadeeda iska kaashaday ururo iyo ganacsato Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiin matalayay dawladda Ingiriiska Cabdirasaaq Ciise waxa uu ka tirsan yahay ururka dhalinyarada ATM oo kaalin weyn ka qaatay qabanqaabada munaasabadan waxaana uu ka warbixinayaa waxyaabaha ku kalifay inay daahfuraan abaalmarintan caalamiga ah ujeedada barnaamijkan loo sameeyay ama event-ka loo sameeyay waxa weeyaan sidii lagu dhiirigelinaa halyeeyada Soomaaliyeed ee markastaba dadaalka ugu jira ee u dagaalamaya danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed sidii lagu dhiirigelinaa loo oranaa shaqada halka ka sii wada wanaaginana waa la idin mahadcelinaya shan qaybood bay ahaayeen dadku waxa ummadda u codaysay laakiin waa dad ka dhex muuqday kartidooda ka soo dhex saartay ummadda Soomaaliyeed oo meel wanaagsan ka gaaray oo halyeey ka noqday oo ummaduna ay u codaysay waxaan rajaynayaa initiative-kan waa initiative Soomaaliyeed oo Soomaali maalgashatay oo fikrad Soomaaliyeed ah oo ah in Soomaali lagu dhiirigeliyo ummadda gudaha iyo dibadda joogaba waxaan rajaynaynaa inuu sanad kastaba inoo socdo barnaamijkan oo mid la mid ah aan oo ka sii wanaajino sanadka marka ka dambeyn sameeyna ka sii wanaagsanaan karaan filayna insha Allah intii ay soconaysay munaasabadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhammaan xubnihii tartamayay iyo waxqabadkooda waxaana la guddoonsiiyay abaalmarino caalami ah 5 xubnood oo ku guuleystay qaybaha kala duwan ee loo tartamayay oo kala ahaa waxbarashada oo ay ku guuleysatay Xaawo Jaamac Cabdi oo ah gabadh Soomaaliyeed oo aragga naafaka ah oo wax ka barata dugsiga indhoolayaasha ee magaalada Hargeysa Xaawo oo qisadeeda waxbarashada ay soo jiidatay dareenka bulshada Soomaaliyeed kadib markii ay u soo bandhigtay warbaahinta Soomaalida iyadoo taasina ku hanatay codka bulshada Soomaaliyeed ee shakhsiga ugu dadaalka badan leh dhanka waxbarashada sanadan 2016 ganacsiga oo ay ku guuleysatay shirkadda Dahabshiil Group oo ah shirkad ka howlgasha guud ahaan caalamka gaar ahaan Geeska Afrika dhanka ciyaaraha oo ku guuleystay Maxamed Faarax oo dadka badankooda u yaqaanaan Mo Faarax oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo u orda orodada dhaadheer dalkan Ingiriiska soo hooyay bilado caalami ah isla markaasina bulshada Soomaaliyeed ay u codeeyeen inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dayan karo dhanka ciyaaraha dhanka howlkarnimada ayaa waxaa loo codeeyay hay'adda Adesso Africa oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka bini'aadanimada ee qaaradda Afrika gaar ahaan geeyiga Soomaalida iyadoo dhanka kalena dhanka madadaalada loo codeeyay Maxamed Cali oo ah wiil Soomaaliyeed oo filimada sameeya isla markaana kaalin weyn kaga jira dhanka filim samaynta dalkan Ingiriiska kaasi oo ka qayb qaatay filimka Montana Movie oo ah filim heer caalami ah isla markaana lahaa guud ahaanba jihaynta filimkaasi amaba ka ahaa director waxaana shakhsiyaadkan iyo hay'adahan ay ka guuleysteen tartamayaal kale oo u loolamayay inay kaalmo ka galaan abaalmarintan caalamiga ah waxaana gabagabadii munaasabadan shakhsiyaadkan iyo hay'adaha kala duwan ee kaalmaha ka galay tartankan ay intooda badan u mahadnaqeen ururada soo qabanqaabiyay munaasabadan lagu abaalmarinayay waxaana abaalmarintani ay noqon doontaa mid sanadle ah taasi oo lagu dhiirigelin doono qof kasta oo muujiya dadaal uu ku horumarinayo bulshada Soomaaliyeed Abdiraxmaan Somali warbaahinta shacabka bartamaha magaalada London